بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay guursada oo guurka badiya dado. rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay anigu waxaan ahay badnaanshihiina yacni mid ku faan ayaan ahay ummadaha qiyaamaha maalinta qiyaamo yacni maalinta qiyaamo marka la gaaro waxaan noqonayaa yacni mid yacni ummadaha ku faana. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وكما قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. marka hore waxaan hambali aan leeyahay walaasheeda Sacdiya Cabdiraxmaan Guuleyd kun iyo ku jir aan leeyahay hambaliyo. waxaan leeyahay baaraka allaahu lakuma wa baaraka calaykuma wa jamaca baynakuma fii khayr. gurigiina guur khayr, gurigiinana guri lagu nagaalo allaha ka yeelo. waxaa idinku duceynayaa inuu alle subxaana watacaala idinku deeqo ilmo baari ah, kuwo yacni saalixiin ah, diintooda jecel, dadkooda iyo dalkoodana u anfaca. allaahuma aamiin. marka xigta waxaa rabnaa yacni inaan in yacni aan sheegno qofka yacni labada qof ee isjeclaanaya ee lamaanaha ah yacni waay ama sababtee isu guursanayaan. insha allah yacni waxaan soo qaadan doonaa axaadiis iyo aayado oo yacni ku soo arooray kelmatan yar yacni aan kusoo jeedin doona hala insha allah. ilaahi subxaana watacaala wuxuu leeyahay: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إلهي سبحانه وتعالى وحوليه يعني دحدينا وحين كأوني يعني وحين كيلنا قلقعين يعني ناس جعلاتان ورحمة نحريس. إلهي سبحانه وتعالى وحوليه أذين قدر هدينا ويعني نفس دينا حق إلهي سبحانه وتعالى وحوليه waxaynu ka abuurnay aswaajan xaasas ama lamaanayaal yani dad isjecel si yacni aada ugu nagaataan, si yacni aada uga xasishaan. ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay: wamin aayaatihi alla aayadihiisa xaggiisa waxaa ka mid ah an khalaqa alla inuu abuuray lakum adinka daraaddiina min anfusikum nafsidiina yani xag ilaahay subxaana watacaala aswaajan wuxuu ka abuuray yani xaasas oo lamaana litaskunuu saad ugu nagaataan, si yacni aad uga xasishaan ilayha lamana xaggiisa. wajacala alla wuxuu ka yeelay baynakum dhexdiina mawadatan waa galgacayl waraxmatan iyo naxariis, si yacni aad isu jeclaataan, as yacni galgacayl isu abuurtaan iyo naxariis, si yacni aad isku naxariisataan. sidoo kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay: yaa macshara ashabaab man istadaaca minkum albaa'ata falyatazawaj فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يا معشر الشباب لن يروا من استطاع يعني روحه أوذا يعني إنه قرصدو هقرصدو ليه رسولك عليه الصلاة والسلام. وحاجة يرأي لقو بحنا يقولك يعني قفك أوذا إنه قرصدو هقرصدو ليه رسولك عليه الصلاة والسلام. يعني بالفير يعني رسولك سيدو إنه يدبلنا بالفير يعني حوليه يعني qof kan awoodina yani inuu guursado hasama ayuu leeyahay maxay rasoonku wuxuu ka noqonayaa gaashaan yani wuxuu qofkana
haddii yani uu awoodo inuu guursadana guurka yani waxaa sabab u noqonaya yani inuu guursado, maxaa yeelay waxyaalo badan ayuu ka gaashamaya. waxaa ka mid ah yani inuu aragga ka halaabayo, u axsanu lifarji, wuxuu ku wanaajinaya yani farjigaaga oo xubinka taranka ragga ama habeenkaba qofku doonaba ha ahaadee. wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam, yaa macshara shabaab, dhalinyaro, man istadaaca ruuxii awooda minkum adinka idinka mid ah albaa'ata yani gurka yani awood u yeeshta, falyatazawaj ha guursado ayuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. fa inahu waa guurka aqadu wuxuu laabayaa lilbasri, waa maxay? waa aragga ka halaabayaa. yani sidoo kalena wa axsan wuxuu ku wanaajinayaa lilfarji, waa farjigaaga, waa xubinka taranka ragga iyo habeenkaba yani ku doonaba ha ahaadee. waman lam yastadic ruuxii aanan awoodinna fa calayhi dushiisa waxaa ahaaday bisawm, waa soom, yani inuu soomo ayaa dushiisa ahaaday. fa inahu soonka wuxuu ka mid ahaanaya yani wuxuu ka mid yahay, fa inahu waa soonka, fa inahu lahu soonka wuxuu ku ahaanayaa wijaa-un, gaashaan ayuu ku noqonayaa, oo ilaahi subxaana watacaala shart ayuu kaaga mangalayaa, yani ilaahi subxaana watacaala shart ayuu kaaga celinayaa. rasuulka calayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay, tazawaju alwaduud alwaluud fa inii makaathir bikum alamam yowma alqiyaama. rasuulka calayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay, guursada oo guursada, yani haweeneyda mid loogu jecel badan yahay, yani haweeneyda mid yani dhalmadeeda ay badan tahay. oo maxaa yeelay maalinta qiyaamo waxaan doonaya uu leeyahay rasuulka calayhi salatu wasalaam, si yani aan idinku faano. rasuulka calayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay, guursada oo guurka badiya dado. rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay, anigu waxaan ahay badnaanshihiina yani mid ku faan ayaan ahay ummadaha qiyaamaha maalinta qiyaamo, yani maalinta qiyaamo kala gaaro waxaan noqonaya yani mid yani ummadaha ku faana. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في